السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الهانتين بوحد ليه مالين بقرن مالين ونأكسن صدق كله. هل كان نجلس عتان وسمير حساسي وحرب ما تيجي كهذا الموضوع كسب صندق كينا صدق كله حين ديار وهاي أنا جي لما أصحاب تيزوا إن إذا برنا رقم كوحي هاي كل وشيء آدمي ما إن برنا رقم كوحي هاي صدق كله لا تصدق قيب هاي تاي ما توحربنا إن بلونه عشرة عن رتين noqon doonaan taxane ama istaba joog aan soo gelin doono hadii Ilaahay raahdo waxaan maanta rabnaa inaan bilowno cashar ku saabsan dhaanto ama dhaantadu waxay tahay hadaba waxaan ku bilaabaynaa waxa weeyaan waa jiibta iyo jaanta hadii aan idin si faahfaahiyo jiibta iyo jaanta waxa weeyaan waa qaabka sacabka iyo lugtaas kula helayso iyo codka sidoo kale codka hadii aan hadda gaar u dhigno kaliya waxaan ka hadlaynaa waa qaabka sacabka iyo lugta aynu isku leeyahay hadii aan ka horeeyo labada qof ee garbayga taagan waa dajiya iyo amal waa runtii ardayda aadka u firfircoon sidoo kalena markastaba heegan ugu jira markastana u heelan inay idibraan waxay toolay dhaqanku wuxuu yahay keedii lahaantiinba hadda waxaan bilaabaynaa waxaan sugnaa waxaanu u taagnahayba waa stepkii koowaad oo ah qaabka sacabku u dhacayo qaabka sacabku u dhacayo waa sidan soo socota tusaale ahaan waa marka leen ku celinaa waa ila soco markii ugu dambeysay hay hadda waxaan sameeynaa si guud baan wada sameeynaa dhamaanteen 1 2 3 laba hadana laba one more time hadana laba aad baad mahadsantihiin hadda waxaan rabnaa inaynu sameeyno sidoo kale qaabka uu lugtu ay u raacayso sacabka ugu horeyn waxaan sameeynaa waxa weeyaan qaabka ay lugtu u dhacayso qaabka lugtu ay u dhacayso waa laba hadana laba muhiimaddu waxa weeyaan in jidhkaagu qallocsamo markaad lugta qaadaso hadda waxaan sameeynaa dhamaanteen oo sameeynaa waa laba mar kale laba mar kale hadana laba bes hadda waxaan sameeynaa waxaan isku xiriirnaa qaabka uu sacabku u dhacayo iyo lugta sacabka iyo lugta ayaan isku soo xiriirnaa okay hadda waxaan sugnaa ama aynu rabnaa inaynu bilownaa waxa weeyaan qaabka sacabka iyo lugta isku raacayaan qaabka sacabka iyo lugta isku raacayaan waa sidan waa laba hadana laba iyo laba hore waxaan u sheegnay in aad dhinac isku qalloociso marka aad lugta qaadayso tusaale ahaan waa wada aragtaaban malaynaya haddana waad soo noqonaysaa hadda waxaan sameeynaa inaan wada sameyno dhamaanteen 1 2 3 laba iyo laba one more time laba ku celi iyo laba waa saa aad hadda arkaysaan hadda waxaan sameeynaa waa qaabka sacabku uu u soconayo qaabka sacabka loogu soconayo qaabka sacabka aynu ugu soconaa waa sidan talaabad hore u soo qaadaysa adoo sacabka garaacaya waa 1 2 3 4 aan ku celino intaana dhaqaaqin ka hor waa inaad sacabka tuntaa waa 1 2 3 4 hal mar aan ku celino 1 2 3 4 waan wada sameeynaa 1 2 3 4 hal mar ku celi 1 2 3 4 hadaba waxaan sameeynaa qaabka aad ugu socon lahayd tusaale ahaan waa socod caadi ah 1 2 3 4 wada fahanteen baa malaynaya aan ku celiyo 1 2 3 4 markii ugu dambeysay waa 1 2 3 4 okay markaas waan wada sameeynaa dhamaanteen waa 1 2 3 4
haye mar kale 1 2 3 4 markii ugu dambeysay ila bilow 1 2 3 4 okay waxaan sameeynaa waxaan isku xirnaa waa sacabkii iyo socodkii tusaale ahaan waa 1 2 3 4 markaan ku celinaa waa 1 2 3 4 one more time waa 1 2 3 4 saad haddaba wada aragtaan waan isku xidhnay hadda waxaan sameeynaa dhammaanteen si guud haddaan bilaabinaa 1 2 3 1 2 3 4 waan ku celinaa mar kale waa 1 2 3 4 mar kale salaha waa 1 2 3 1 2 3 4 okay hadda waxaan sameeynaa haddaba waxaan isku soo wada xidhaynaa qaabkii sacabka step 1 ilaa step 3 step 1 ku wuxuu ahaa waa sacab kaliya waa 1 buha ila samee 1 step 2 waan ku xidhaynaa waa 2 sacabkii waxaan isku xidhanayaa lugtii 1 ku celi 2 ku celi 1 2 waxaan raacinaa stepkii ugu dambeeyay oo ahaa step 3 step 3 waa 1 2 3 4 mar kale ku celinaa 1 2 3 4 1 2 3 4 wada fahanteen baan u malaynayaa idil ahaantiinba hadda waxaan ka soo bilaabnaa iyadoo isku xidhan dhammaanteed waa 1 2 3 4 haye one more time markii ugu dambeysay 1 2 3 4 haye 1 2 3 4 wada fahanteen baan malaynaya dhammaantiin hadda waxaan sameeynaa music baan ku bilaabanaa sax haye bilaabma okay haddaba haddii aad ka heshay daawashada muuqaalkan waxaad nagala socotaa waa Samiir Xasaasi haddaba si ay dhiirigelin noogu noqoto fadlan like share comment subscribe intaba bad mahadsantihiin waxaan anaguna idinku dadaali doonaa inaan idin ka dhigno joogta ama taxane hadii Ilaahay